Hey guys, assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back ladies and gentlemen. Waa Shakuur bin Rashid iyo video cusub. So guys, in badan bay soo weydiiseen ana codsigiina waan aqbalay. So ku soo dhawaada series kan cusub ee Edit with me episode number 1. Well, asxaabta waxa jira asxaab far badan oo isoo weydiisa bal hal sawirka u dhigay mobile application ka Lightroom-ka waxaan rabnaa bal inaan aragno sidee sawirka loogu hagaajiyo sidee loogu qurxiyaa waxa soo dhan waan maqlay meel far badan way iga soo weydiin hadii noqoto DMS hadii noqoto comments hadii noqoto email so meel far badan bay iga soo weydiin soo markaas gabigoodi intaan isku wada geeyban ka wada dhigay halka series inaynu bal weekly aan u soo gelino oo adabina bal sidaan u edit gareeyo sawirada ama si aan u qurxiyo aan isticmaalo application ka Lightroom-ka waliba ay wish inaad soo codsan lahaydeen sidaan anigu ugu edit gareeyaa PC-ga marka la joogo Lightroom-ka PC-ga ku jira laakiin waa caadi dhimale mobile application ka soo codsateen marka waxaan isku dayeynaa inaan series-ka qaybta number 1 aynu ku edit gareyno hal sawir oo aan soo qaaday aynu rabarnayno ku edit gareyno inagoo isticmaalna mobile application-ka so waxaan rajaynayaa inaad wax far badan ka faa'iidi doontaan episode-kan aan soo gelinayo weekly kasta waliba maalinka Salaasada ama Tuesday-ga hadii Ilaahay yiraahdo aan ugu talagalay soo geliyo habeenkaas marka waxaan jecelahay bal idinku raad yani si jamacayno wada edit gareyno idinku daawanaya aan edit garanaya soo fiiriga dadka ka like sar sidoo kale subscribe taaba dad channelka ku cusub tahay ugu soo biir family-geena filmmakers-ka wax far badan baad faa'iidi doontaa all right video-ga daba aynu galo so marka anigu aan doonayo horta inaan sawir qaado waxa soo dhan ka horeeyay idinku marka doonaysa sawir aad qaadaan waxa soo dhan ka horeeyay horta inaad kamarada setting-keeda hagaajiso kamarada setting-keeda marka hagaajisana wax kale kama hadlayo shutter speed kama hadlayo ISO kama hadlayo waxa soo dhan kama hadlayo waxaan sheegayaa faylka oo hadhow tola sawirka ku soo baxaya waa nooca waxa inta badan lagu qaadaa xaaji oo cusub waxa loo yaqaan raw kamarada hodhan wada support garayaan JPEG iyo RAW way kala duwan yihiin JPEG aad garanaysaa malmaranaya JPEG iyo RAW waxay ku kala duwan yihiin waa very simple waxa weeyaan JPEG waxa weeyaan colorskiisu waa fixed hadhow markaad post production ka geysay leedahay hagaaji sawirkii wax ka bedbedel they already markaad soo hada doonaysa color orange inaad dalaacdo already uu dalaacnaa hadda si dalaacday sayd buu noqonayaa marka mar walba cabirkaad ugu tala gashay ama si adigu oran lahayd ikhtiyaarkaaga ahayd colorska inaad adigu aad manipulate gareyso oo hadda tola colorka nooca u baahnayd iyo xadiga u baahnayd ba aad geyso isagu kuma ogolaanayo mid kale haddaad doonayso inaad sawirka soo daabacdo mar soo saarto mar labaad salaadana copy ka sii samee sawirka quality-giisu xumaada adaan rahayn marka la yiraahdo RAW waa maxay waxa weeyaan file ku sahlaya sawirka marka aad qaaday post production ka geyso in color kasta oo adigu aad ugu tala gashay aad hoosna u dajin karto korna u dalaci karto without losing quality marka hadda doonayso sawirka xitaa inaad mar daabacdo mar labaad hadana sii daabacdo quality-gu marna ma loo RAW waxa weeyaan file-kiisuna uu ka culus yahay marka loo eego JPEG xitaa markaad eegto rendering-ka markaad eegto inaad export gareyso marka doonayso inaad view gareyso marka saas uu kaga culus yahay sababta wuxuu xambaarsan yahay more information adiga ka qarsoon oo markaad post production ka tagto aad ku ciyaar karayso marka difference-ka u dhaxeeya JPEG iyo RAW taasoo noqonaya marka RAW-ga dooratay sawirkiina waan soo qaaday sidan ayaynu markaa u edit gareynaa ina marsha all right ladies and gentlemen marka sawirkan maanta rabno bal inaynu edit gareyno ugu talagalay inaynu series-kan aynu ku furno waxa weeyaan sawirkan landscape-ka sawirkan waxaan ku soo qaaday dhagax kuure waa gelinta masadarka san golden hour-kii weeyaan sawirkan waxa weeyaan RAW-gii aan idin soo sheegay marka RAW baan ku soo qaaday sidoo kale waxa weeyaan flat marka koobaad sawirkan brightness-kiisu waa caadi ama exposure-kiisu overexpose ma aha underexpose ma aha saasuu sax ku yahay marka waxaan isku dayayaa inaan in yaro contrast yar siiyo marka ku xigta waxaan isku dayayaa bal qaybtan highlights-ka inaan hoos u yara dhigo in yar sadarkasan in yar baan hoos u dhigay all right wakaas sidoo kale waxaan isku dayayaa hadaba bal qaybta shadows-ka san soo yara madoobeeyay yar you can tell the difference marka horena saas waxay imkan wasada waxaad yara dareemaysaa in yar contrast oo yara noqonayo white-ka ma rabo inaan wax far badan aan hoos u dhigo bal maanta kor baan u yara dalacaya san hadhow toole yani qaybta ay ka soo gelayso light-ka cadceedu ay u noqoto hadhow toole mid yani adarka saalkaas inay tahay halkii cadceedu ka soo gelisay sidoo kale waxaan arkaynaa in ay sunflares ku jiraan sunflareska waad arkaysaa inta yar ee moodo rainbow-ga waxa weeyaan sunflares oo lenses-ka samaysa marka cadceedu ku dhacdo all right balaakiska marka noqotana in yar ayaynu dhanka iyo madowga aynu yara celin doonaa all right intaasaynu taa kaga imananaa exposure-kiisu waa sax qaybta colorska waxaan ku qaybta temperature-ka inta badan anu ka xukmaa yani viewer-ka qofka sawirka arkaya bal inuu dareemo waxaan yihiin xilli yani cadceed soo jeedo kulul iyo xilli yaro qabow inay tahay labada kala baan sheegay in code temperature-ka ama qaybta warm-ka iyo qaybta temperature-ka blue-ga
alright markaa waxaynu sawirkan u soo celinaa sababtoo ah uu u noqdo yani golden hour ama wasayna dadka tusnaynayni yani xilli huruudadii ama cadceedu ay sii dhacayso kala aan qaaday waxa weeyaan colorka yara temperature-ka qaybta aan ka siiyo orange-ka marka xaggaasaan soo celinaya alright waxaan tagay qaybta mixka markaan tago kaladhada inta badan imika sawirkeenan ku badan waxa weeyaan laba waxa weeyaan saddex baan jeeda waxa weeyaan ka orange-ka iyo ka huruuda iyo ka akhtarka marka greenka waxa isku dayaya halka inaan hue-ga u celiyo dhanka midigta si in yaro akhtar aan ugu yar dari karno sida oo kale waxa aynu sameeynaa qaybta orange-ka intaanu tagno inaan hue-ga u celino dhanka iyo bidixda hue-ga waxaan u celinaa dhanka iyo bidixda dhanka iyo bidixdan u celinaa waxa jira dareemaysaa inuu xoogaa soo yar orange noqonayo alright qaybta saturation-kana waan yara dalacaynaa in yar marka hore saas oo imka moosada waxay noqotay qaybtan kale ee orange-ka iyadana waxaan u yara celinaa bal dhanka iyo bidixda alright dhanka iyo bidixdan yar celinaa alright waxaan isku daynaa haddaba qaybtan inaynu nimaadno effects-ka qaybtan effects-kana waxa aynu ka shaqaysiinayna waxa weeyaan qaybta clarity-ga qaybta clarity-ga sawirka sheegaysa qaybta clarity-ga sawirka waxa sheegaysa inuu noqdo mid yani mid sharp inuu noqdo oo la dareemayo in quality ku yara jirto oo aan yani khafiif ahayn dehays-kaas yara sameeyna si wax kasta huruud ama midab kastaba sida saturation-ka kala in yar u soo yara kaco ayaan isku daynaa alright vignette bir haddaba marka dambe dooranayna halka hoose vignette ku qoran tahay sababtoo waxaan rabnaa cirifyada jirida hoosteeda ama bas geedahani in ay yani madoobaata rabnaa okay qaybta ku xigta detail-ka tagi doonaa shayga inuu detail ka muuqdo ama quality-giisu waa nooc ma in la yiraahdo sharpening-kaasi marka in yar ku yar dalacna soo uu noqdo sawirku mid sharp basan isoo sheegay clarity-ga kale ayuu la mid yahay noise reduction-kana in yar ayaan ku darnaa sababtoo waxaan diidana wax kasta oo noise ama bas shucaaca sawirka ku jira in rabana inaan hoos u dhigno hadii ay jiraan waxaad moodaa markii hore sida ahayd imka markii sida tahay difference fiican ayaad qabateen asxaabta alright haddaba waynu safar garaynaa waxaynu gelinaa application-kan waa yaqaan lens distortion in badan baan idin soo sheegay lens distortion-ka kama maarmo sababtoo waxaan ku daraa wax yar idin ka idin tusi doono alright choose image baan odhanaynaa marka waxaynu u isticmaalnaa application-kan wax kale maaha qaybta halka ku taala cirifka dhagaxa agtiisa ee bidixda ah ayaan rabnaa in cadceedu in yar laamaha soo yar gaadho sidoo kale halkan ay ka soo baxaysa jirida gunteedana aad moodo in yani orange-ka ku yar badana marka ka ugu habboon doorana waxa weeyaan qaybta labaad ama khaanada labaad baan dooranaa waxaad arkaysaa inuu si weyn ugu soo galay waynu yaraynanaa intaanu yarayn karno kadibna waxaanu dhex dhiganaa halka ay ka soo gelaysa cadceedu meel kale horta kama dhigano
alright marka sidaas ayaan nagu sawada ku edit gareeyaa gibigoodaba wixii u baahan inaan sunflares ka ku soo darno halkan lens distortion kan ayaan kaga soo daraa light leaks ka kala duwan ee kala dhada leh marka lens flares kana ka ugu haboon ee la doorto marka lens distortion kala joogo ee yani natural marka cadceedu aynay yani golden hour ka si xoog ay centerka ugu soo galayso oo kala ay tahay aan giftin ka soo galaynin sawirkaaga waxa la isticmaalaa ka zero-ga ama se ka goobada aba la isticmaalaa alright markaas ayaan anigu sawirada ugu hagaajiyaa anoo isticmaalaya lens distortion haddaan u baahdo markaas ayaan idinku hagaajin doontaa So ladies and gentlemen, sidaas ayaad ku edit garan kartaa sawirka aad u baahato adigoo isticmaalaya Lightroom. So marka waxaan rajaynayaa video inaad wax ka faa'iiday. Ka waran episode-kan si aad u aragtaa, ma yahay mid aad soo dhaweynayso, ma yahay mid aad wax ka faa'iidayso, sideen u improve garan karnaa, maxaad ku soo darsanaysaa, waxaas oo dhan igula wadaag qaanada commentiga. Marka marlabaad waxaan ka codsanayaa video-gan aad ka heshay inaad like saarto, sidoo kale aad subscribe tanaada channelka ku cusub tahay oo ay tahay markii kuugu horeysay inuu aragno. Notification bell-kana aad ilaabin si ay ku soo gaaraan videos-ka aan weekly u soo geliyo. Aad baad mahadsan tahay tan inta ku kulmi doono series-ka ku xiga week dambe insha Allah inoo soo socda iyo video kan ku xigada waa shukr badan shideeda leh peace